filimkan wuxuu ku bilaabanay Mahavir oo jooga shaqadiisa isagoona daawanaya ciyaar legdan ah oo socota taasi oo ku socota tartanka Olimbikada adduunka dhexeysa Ruushka iyo Mareykanka waxaana meeshaas ka muuqata inuu murugaysan yahay sababta dalkiisa India ma aysan gaarin finalka sababo la xiriira awoodtiri waxaana hadlaya saaxiibka shaqada wuxuu isku dayay inuu ka xanaajiyo isagoona ku dhahay afka bax culeys malaan taasoo macnaheedu ay tahay afka ay ka fududta laakiin dagaalka ma sameyn kartay ku dhahay legdanka markaasi Mahavir xanaaqay wuxuu ku dhahay u qaad aniga iyo adiga oo joogna goob legdan ah markaasi labadood waxay bilaabeen inay legdamaan Mahavir saaxiibkiisa dhowr jeer uu ka adkaanaya asxaabta kale ee shaqadan way taagan walibana ayagoo daawanaya waxaan halkaas ku ogaanayna Mahavir inuu aad u jecel yahay legdanta wuxuu soo aaday ciyaar legdan oo dhaxaysa dad kale kuwaas oo ku sugan tuuladiisa wuxuu soo xasuusanaya waagiisii hore markii aabiis uu sheegay inuu ka tago legdanta loona soo bandhigay shaqadiisa haduu ku jiro sidaas ayuu iskaga dayay sababta legdanta ma laga helay wax lacag ah laakiin shaqadaas lacag badan ayuu ka helaya markaas waxa soo galaysa xaaskiisa wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaad tiidhash sanadkan walibana isagoo dhaa wiilkaas waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo riyadeeda walbariyadu ku guuldareysay waagiisii hore taasoo inuu qaado horyaalka ama Olimbikada legdanta isla markii waxa la gaaray maalinta dhalmada Mahavir aad u lawalsan yahay markaani sababtoo ah wuxuu sugayaa inuu helo wiil balse waxa loo sheegay xaaskiisa inuu dhashay markaani kala gabar markaas wuxuu dareemay murugo sababtoo ah tan waa soo horjeedku waxa uu isaga rajeynayay dadka tuuladan waxay siinayaan talooyin iyo daawoyin si ay u dhalaan wiil marka la gaaray dhalmada labaad dadka tuulada oo ilaa soo baxay walbana ayagoo sugaya waxa markaan loo dhal doono Mahavir balse markaan sidoo kale waxay noqonaysaa gabar inkastoo dadka tuulada ay siin caado dhaqameed iyo talooyin balse waxba ma aysan ka tirin wuxuu dhalay gabar markaas hadan la eedeena waxaan lagu dhahay idinka waxaan anaga idin sheeg ma aan sameyn miya si qaldan aad u sameyseen sanaduu bay si socda Mahavir wiil wuxuu rajeynaa inuu dhalo wiil xaaskiisuna way si dhalisaa marka saddexaad iyo afraad balaakiin dhamaantood waxay noqonayaan wada gabdho Mahavir oo ka qoosnay riyadiisii iyo rajadiisa ba ilaa gabdhihiisu ka koraan maalin Mahavir soo laabanaya shaqada kadibna wuxuu arkaa loo wiil oo soo garaacay heelkoodii waxay yimaadeen xaafadiisa si ay ugu dacwoodaan gabdhihiisa balse isaga markiisa wuxuu maleynaa inuu sameeyo waxaas oo mkaar ah wiilka saaxiibkiisa uu dhalay balse xaaskiisa Geeta ay sheegaysaa arrinta inay sameeyaan gabdhihiisa Bibita iyo Geeta kadibna wuxuu ka codsanaa labada gabdhood inay u sheegaan sidii ay isaga u garaaceen kaas ayuu ku tijaabinayna adeerkooda oo mkaar sidoo kale Mahavir aad ugu faraxsan yahay sababta markaan wuxuu dareemay inuu heli karo qof u rumeeyo riyadiisa isla markaasna soo dhaqaaqay wuxuu tagay xaaskiisa si uu ugu sheego waxa uu isaga ku fikiraa balse ayadoo ka diidaysa walibaneeda ku leeyahay legdanta kaliya u gartay wiilasha gabdhaha ma aha sidoo kale waxay ku dhaysaa waxaan baqay cambaareyntii hadalka dadka tuulada ay naga sheegi doonaan Mahavir wuxuu isku dayay inuu qanciyo sidoo kale wuxuu ka codsanaya inay siiso fursad hal sano oo kaliya isagoona ku dhahay haddii ay sameeyaan waxa aniga aan doonayo iska loobi doona riyadeeda sidoo kale wuxuu ku dhahay mana ka hadli doono arrintaasi mar kale markaas wuxuu tagay gabdhaha walibana isagoo sheegay inay isdiyaariyaan bidi markaas inuu soo waday wuxuu geynay maqaayad walibana isagoo ku dhahay waxa jeceshiin maanta ornana cuntadan mar dambe ma arki doontiin ayuu ku dhahayaa sababtoo ah waxay noqon doonaa haliye legdin man u ahboona inay cunaan cuntaan caafimaad u lahayn isla markaas waxay soo raaceen isaga wuxuuna bilaabay inuu tababaro walibana tababar aad u adag isagoona ku qasbay iska bedelaan dharka dumarka xirtaan dharka wiilasha balse labada gabdhood ma awoodaan inay adkaystaan arrintaasi oo dhan waxayna u tagaan hooyadood walibana ayaga ka codsanaya inay badbaadiso balse waxay ku dhaysaa u qaata hal san inaan aniga hooyo idin ahayn markaas wuxuu sameeyaa goob legdan ah in adeerkooda Omkarna uu caawinaya walibana isagoo ka caawinaya tababarada Mahavir markuu guriga soo laabto wuxuu marmaya xaaskiisa sababtoo ah wuxuu rabaa in gabdhiis la siiyo digaag si ay u cunaan maadaama ay u baahan yihiin borotiin arrintaasna diintiisa ma ogola sababtoo ah ma cunaan xayawaanka waxay ku dhaysaa digaagani ama xayawaankan marnaba suurtagal maaha in lagu kariyo aniga jikadeyda markaas isagana wuxuu go'aansanay Omkar inuu baro cunto karinta wuxuu soo iibinaya buuk uu ka barto kadibna wuxuu aaday dukaanka digaaga wuxuu hadlaa ninka dukaanlaha walibana isagoo ku dhahay 20 rubi iga siiyo halkii ka aad 100 rubi isagoona waliba ku dhahay lacag gabadheeda hadii ku guuleysto tartankan legdinka ah waxaanu sheegi doonaa dadka oo inay digaagad borotiinka ka cuni jirtay gabadheeda adiga dukaankaaga wuxuu ku canbixi doonaa isaga dukaankiisa runtii inuu ka iibsanayo wuxuu ka ogolaanaya midaas inuu Omkar wuxuu baraa sida loo kariyo digaagada arrintaasina waxay ka ereysiinaysaa dhammaan dadka tuulada waxayna caanaan gabdhihiisa xitaa ardayda isku fasalka ahayn way soo caanayaan gabdhihii balse Geeta Bibita waxay go'aansadeen inay ku soo noqdaan guriga walibana ayagoo raba inay hadlaan aabahooda ayagoona ku dhahay aniga diiradda ma saari karno waxbarashadeena waxayna ku dhahayaan sababtoo waxaan ku soo daalnay tababarada adigna siinayso sidoo kalena waxay ku dhahan timeen xataa way adkaadeen sidoo kalena way xumaadeen walibana ayagoo ku dhashay injir isagana subaxdii xigtay waxa go'aan ku qaadanaya inuu ka jaro dhammaan timahooda wuxuuna keenayaa timajaraha sidoo kalena waxaa loogu jaraa sidii wiilashii oo kale taasina waxay soo kordhinaysaa dhaleeceynta ay kala kulmayaan dadkii tuulada markaasi ay labada gabdhood waxay go'aansanayaan aabood inay ugu ciyaaraan si caqliyeysan sida inay ka bedelaan waqtiga alarmiga si uusan isaga u dareemin ama inay iska dhigaan kuwa dhaawacan walibana ayagoo raba inaysan meelna aadin ayagoona u maleynaya aabood inay sidaas kaga adkaadeen habeenkiiba hooyadood waxay ka codsanayaan inay aadaan arooska saaxiibadooda balse midaasi ma oga aabahooda nasiib daro aaboodna meeshaas ayuu kusoo arkaa weliba si kama ah walibana ayagoo ciyaaraya isla markaasna waxay soo baxaan waxay dacwoonayaan saaxiibadooda ayadan waxay ugu jawaabaysaa idinku waxaad haystiin aabaydin danaynaya balse waxay ku dhaysaa aniga aabahey wuxuu qasbay inaan guursado ima danaynayo sidoo kalena waxay ku dhaysaa idinka aabin danayo kaliya sababtoo wuxuu rabaa inuu gaarsiiyo heer Olympic laakiin aniga aabiga dan iga malahay ku dhaysaa subaxdii xigtana Mahavir wuxuu soo toosay gabdhiisa ayagoo aadin tababarka walibana isagoon soo kicin markaas wuxuu dareemay gabdhiisa inay ogolaadeen tababarka isla markaana waxay joojinayaan marmarisooyinkii hore u sameyn jireen markaas Mahavir wuxuu go'aansanay inuu diiwaan geliyo gabdhiisa tartanka legdinta balse diiwaan geliya markii loo sheegay magaca
Gita aad ayuu qoslaya sababtoo wuxuu dhahay qofkan waa qof dumar ah weliba isagoo raacaya kan waa la tartan legdin eemaan cunto karin arrintaas maxay caraysiinaysaa Mahaviir wuxuu la murmayaa ninkii dadka soo qaybgalaya meeshaas iyo xalin khilaafka Mahaviir uu soo baxaya markaas diiwaangeli waxa maala ninka weliba isagoo ku inuu ku faa'iideysto fursadan oo wuxuu ku dhahay qor magaca gabadha tartankaani sababtoo ah tan waxay soo jeedinaysaa dad fara badan weliba waxa loo imaanaya meeshaan daawasho ayuu ku dhahayaa ninkii sidaasna lacag fara badan ayaad ku heli doontaa markii iibin tigidh fara badan wuxuu ku qancay ninka hadalkii uu soo doob ordaya Mahaviir markaas aan waxa loo sheegay in la ogolaaday tartankan ay ka qayb gasho gabadha dhammaan dadkii tuuyadan waxa loo sheegay gabar in ay ciyaari doonto tartanka legdinta wiilal isla markaasina dad aad fara badan ay imaanayaan si u daawadaan tanina waxay noqonaysaa gabadhii ugu horeysay ee ka qayb gasha tartanka legdinta markaas inuu garsoore wuxuu weydiinaya hadii taqaan hadii kale tartanka xiriirkiisa markaas wuxuu ka codsanaya inay doorato mid kamid ah wiilasha meeshaan taagan waxaanu maleynayaa inay dooran doonto kan ugu tabardaran laakiin Gita way ka yaabinaysaa dhamaantood ayadoona dooranaysa kan ugu xoog badan markaas maxay bilaabayaan legdinkooda Gita si fiican ay u ciyaaraysaa sidoo kalena way adkaanaysaa ugu dambeyntiina waxay ku guuleysanaysaa abaalmarinta tartanka kaasi oo 20 rubi inkastoo lacagtaas yarta dadkii oo Gita aad u jeclaadeen sababtoo ah dadka way ilaahay qabadkeeda qof kamid ah dadweynaha ayaana ku dhawaaqay inuu siin doono Gita abaalmarin 50 rubi ah si uu dhiirigeliyo inay sii wado tartanka kaas Gita abeet u imaanaysa waliba iyadoo weydiinaysa goortuu noqon doono tartanka xiga Mahaviir aad buu uga farxay hadalkaasi wuxuuna dareemay inay dhabaantii xaqiijin doonto gabadhan riyadiisa maalin xigtana Gita ay aadaysaa tartanka sidoo kale way guuleysanaysaa ayadoon waliba awoodo inay ku guuleysato tartamo far badan oo isxiga isla markaasina waxay qaadaysaa koobkii ayadoon waxay noqonaysaa qof caan ah waliba iyadoo bilaabaysa sidii ay ciyaari jirtay si fiican u sii ciyaarto dadkan waxay bilaabeen inay kaalmaan ka shaqeystaan xooga Gita iyo Babita isla markaasina gabdhii la caan jiray markan labadoodu bixin noqdeen dad caan ah sidaasna waxay kula jireen lacag iyo abaalmarino fara badan kaas Gita waxa lagu wacay iskuulkeeda asxaabteedina aad ay ugu faanay xilligaas ayuu Mahaviir go'aansanay inuu qaato fasax shaqada si uu si buuxda ugu soo tababaro gabadhiisa Gita laakiin mudanihiisa shaqada uu ka diiday codsiga fasaxa taasoo ku khasbaysa inuu iska casilo shaqadaasi oo idin markaas ayuu Mahaviir wuxuu sameeynaa goob legdin oo isaga u gaar ah cusub ayuu ugu sameeynaa guriga dhexdiisa isagoo dhigaya roog kaas ayuu wuxuu bilaabay inuu sharaxo tan inay ka duwan tahay legdinta ibn isagoo raatan qaab ciyaarkeeda waxay kaliya wax lagu xisaabi doonaa dhibcahaas oo tan ugu badan inaad adiga heli doonto taasi oo ah 5 dhibcahaas oo aad ka heli doonto qofka adiga markaasi la tartamayso sidoo kale markaas wuxuu bilaabay roog muujinaya qaabka legdinta loo ciyaarayo inuu tuso wuxuu sheegay aaga gaduudka inuu yahay aaga khatarta sidoo kale hadii aagaas ay ka baxdo waxay lumin doontaa 20 dhibcood sidoo kalena waxaa jira 3 wareeg kastana ma dhaafo 2 daqiiqo hadii ku guuleysata 2 wareeg oo kamid ah 3daas ayaa guuleystaa dibna wuxuu soo waday gabadhiisa Gita waliba isagoo geenay akademiya Mahaviir uu ku faraxsan gabadhiisa inuu keeno halkaani balse mudanaha ayaa wuxuu ku dhahay gabadha miisaankeeda aad u hooseeya sidoo kale wuxuu ku dhahay tan way guul dareysan doontaa hadii tijaabo la qaadaa laakiin Gita qof walba meeshaas ku jiro ka guuleysanaysa walibana ayadoo galaysa kaalinta koowaad kadibna waxa loo gudbinayaa tartanka caalamiga ah ee bilowga ah isla markaana ku guuleysanaysa waxayna qaadanaysaa bilada dahabka sanado kadib Gita way sii koraysaa waxayna ka mid noqonaysaa legdamayaasha xifradlayaasha dadkii tuuladan aad ugu farxay midaas sidoo kale waxay sameynayaan xaflad guul iyo lacag fara badan ay daddaadinayaan Mahaviir biladaas dahabka wuxuu ku dhagsanayaa gurigiisa dhexdiisa wuxuuna umkaar ku dhahay ugu dambeyn riyadu ay rumoobi doontaa laakiin markaani Mahaviir wuxuu dareemay riyadiisa inaysan rumoobi doonin ilaa Gita ka soo qaadato bilada dahabka oo India habeenkii waxay imaanaysaa Gita waxayna ka codsanaysaa inay aad gobolka Balita waliba si ay ugu biirto akademiyada caalamiga ah halkaas ugu tababarato dhammaan Olimbikada qaranka kaasi oo abeed ka xanaajinaysa balse wuu ku ogolaanayaa waxayna halkaas kula kulmaysaa Baramu macalinka tacliimiga ee tababari doona kaasi inuu isku yeero dhammaan gabdhihii waliba isagoo ku dhahay iskiilo dhammaan tababarada soo qaadatay nidaam kasta oo cunta hore u soo barteen ka hor intaysan halkan imaanin sababtoo ah markaani Baramu wuxuu doonayaa Gita inuu si cusub wax u baro Mahaviir uu imaanay waliba isagoo macalinka soo sawirtay wuxuu u sheegay inuu isaga yahay gabadhan macalinka soo tababaray hadalkaasina waxay ka careysiinaysaa Baramu markaas wuxuu sheegay tababarka ay sameysay inay qalad ay tahay waliba wuxuu ku dhahay macalinkii hore si fiican waxba ma uusan ku soo barin markaas Mahaviir uu soo laabanay waliba isagoo ku dhahay gabadhan halkan waxaad u keentay wax u barto ee faanada inaga daayanaga tag markaas Mahaviir soo baxaya waliba isagoo aad u murugaysan ku guriga soo laabtana Babita ay weydiinaysaa walaasheedii macalinka cusub isagoo xanaaqsan wuxuu ku jawaabay macalinkan uu ku dumiyay qaabka aniga wax idin baraayo Gita waxay sameynaysaa asxaab far badan oo akademiyada ah nolosheeda aad u sii bedelaysaa iyadoo xataa bilaabaysa inay iska sii daysato timaheeda aabeedna wuxuu la qabsaday inay sameyso caadooyinkeeda taasi oo inay gorar ay seexato inaysan daawan TV waliba inay iska sii deynin timaha laakiin iyada intaba ay sameynaysaa marka la xog soo laabanaysaa gurigeeda Mahaviir wuxuu weydiinayaa tababarkeeda cusub markaas wuxuu sheegaysaa inay soo baratay waxyaabo cusub sidoo kale ay bari doonto walaasheeda markaas Babita waxay bilaabaysaa inay barato qaabka Baramu oo kale waliba iyadoo baraysa walaasheeda waxayna walaasheeda u sheegaysaa qaabka dhaqdhaqaaqyada ay sameynayeen qaababkii hore markaas abiya laas maqlay kadibna wuxuu xanaaqayaa markaas inuu weydiinayaa qaladka dhanka uu ku jiro iyo sheekay uu ku dhahayaa markaas waxay bilaabaysaa inay tusto aabaheeda qaab markaas ay isbalansan aydi aabaheeda laakiin aabaha maskiinka is qirsuujinaysa oo sidaas
markaas ay ku tartamayaan labadooda sababtoo ah isaga jirkiisa oo sii kordhay sidoo kalena waada sidaas ayay xoog badinaysaa dhulkeena dhigaysa ayadoona sheegaysa tababarkaas inuu fiican yahay markaas ku dayaysa walaasheed inay tusto laakiin walaasheed waxay u jawaabaysaa maya welibana ayadoo sii raacsiinaysa qaabka aabahay uu barayo bilad walba gaarsiin doonta qof kale wuxuu baran bilad caalamiha ma gaarsiin kartay ku dhahaysa gitaan waxay ku dhaysa tartanka adduunka waxay gaarsiin doonaa tababarka baramuun markaas gitaan waxay ku dhaysa qaabka aabaha ku barayo weligeed kuma gaarsiin doonto bilada caalamiga isla markaasina Babita iyo Mahavir waxay soo aadaan tartanka qaranka Babitaan waxay ku soo guuleysanaysaa tartankaas dhanka kale Gitaan waxay ku guuldareysanaysaa tartanka adduunka Mahavir bilada Babita wuxuu ku dhajinayaa darbiga weli weydiinaysaa aabe kuma faraxsanid mi aniga guushayda ha ayuu ku dhahay laakiin wuxuu sheegay inuu kalbalsan yahay gabadhiisa kala Gitaan wuxuu sheegay gabadhiisa markii aad tartanka akademiyada caalamiga ah inuu la socdo ayada oo wuxuu ku dhahay adigana ilaawin sida walaashaada oo kale tababarkayga isagoo weliba ku dhahay igu sameyn sidii walaashaada igu sameysay oo isla markaasina Babita waxay aasay akademiyada waxaan soo dhaweynaysaa walaasheeda waxaan kala tusaysaa meelaha Gitaan waxay dareemaysaa inay isbedeshay walaasheeda Gitaan welibana Gitaan iyadoo baleenas kaliya inay ku guuleystay ciyaar iska caadi ah markay guul dareystay ciyaartaasi Gitaan qof walba wuxuu bilaabay inuusan xushmeynin sidoo kale waxay noqotay qof kaliya dadkooda loo meeshaasi joogaan markaas Gitaan waxay dhisa laakiin waxweyn ma ahan ciyaartan waa ciyaar oo kaliya ciyaar farbadan ay jiraan ay ku dhahaysaa laakiin midaan waxay u muuqataa inay noqon doonto guul darada ugu dambeysa maxaa yeelay markale waxay ku guul dareysanaysaa Moscow iyo Istanbul kadibna Gitaan waxay kula hadlaysaa akademiyada welibana iyadoo aad u murugaysan markaas waxay aasaabeyda welibana iyadoo ooyaysa iyadoo sheegaysa tartankeeda adduunka kaliya inuu ka dhiman 6 bilood weliba midka India sidoo kale waxay sheegaysaa inay isaga u baahan tahay markaas ay dib ugu laabanaysaa waxyaabaheedii hore ay sameyn jirtay taasi waxay waabeeda u baray sidoo kale waxay iskaga gaabinaysaa timaha baraheedan markaan wuxuu sheegay inay ku adkaan doonto inay ciyaarto iyadoo miisaankeedu 55 kiilo sababtoo miisaankaas hore ay u guul dareysatay markaas inuu dhaasay u guuleysto hadda baanta in la miis 4 kilogram jirka kamid ah macalinka markaas wuxuu bilaabay inuu sharax gabadha cunto sida jirkeeda oo ilaalin leed inuu miisaankeeda si kordho markaas inuu aasaabeyda isagana wuxuu ku dhahay macalinka wuxuu ku shahaba dhigaysan biskada hadalkiisa ku dhahay aniga ku imaan doon miisaankaasna waad ku ciyaari kartaa intuu iimaanay wuxuu bilaabay gabadhiisa inuu tababaro subax waliba 5 subaxnimo kadibna dib ugu celinay akademiyada subaxda markay tahay 7deeda ilaa mar arka xariif kadibna wuxuu gudbinayaa macalinka markaas wuxuu go'aan qaaday inuu meesha ka buriyo iyadoo idin markaas Mahavir taga si uu raali geliyo macalinka kadibna akademiyada barbariyada Mahavir oo go'aanaysa gabadhan xasiinaysa fursad labaad balse shuruud ayaa waxay tahay inaysan ka bixin iyada akademiyada hay uu dhahayaa kadibna Mahavir guriga uu maanay walba inuu ku fikray wuxuu ku fikray gabadhiisa qaabku ku tababari lahaa markaas wuxuu keenay fikrada inuu muuqaal u duubo kadibna iyadoo jir anjalo u geeyo markaas wuxuu ku codsanay muuqaal inuu soo dirto taasoo tartamadii hore ku guul dareysanaysa iyada markaas inuu ku dhahay telefoonka dhigtaadana waxaan ku sheegay doona talooyin fara badan si adiga ku tababar gabadhayda ugu dambeyntii waxay bilaabay tartanka ciyaaraha ay muddo ku riyoonaysay dalka India sanadda 2010 Gitaan aad bay u lacsan tahay oo sababa qabadkeeda oo liita sidoo kale ciyaareedii oo adkaa in badan guul dareystay ciyaarteeda ugu horeysay ciyaarisi gabar ka socota Austria markaas aad bay xoog badan ciyaartan xaq koobnay 3 wareeg Gitaan waxa kulmo wareegeedii ugu horeysay sababtoo aad bay u walwalsanay laakiin waxa bilaabnay qabadkeeda dib u soo laabto welibana ku guuleysanaysa wareegii labaad macalinkeeda wuxuu siinaya talo taasoo inay isdifaacdo laakiin aabeedu ku diiday wuxuu ku dhawaay inaad weerartaa wareeg saddexaadna Gitaan waxay sameynaysaa wuxuu ka amray aabaheeda wareegan way ku guuleysanaysaa waliba ay ku guuleysanaysaa 3 dhibcood markaas ay isku gaarnaysaa ciyaarta xigta welibana iyadoo la ciyaar doonta gabar ka socoto Nigeria waxaan ku ah inay tahay lagdaniyaan xoogan oo xaq jir ah taasi oo weerar badan mana siinaysa qofka la ciyaara jaanis uu ku soo weeraro markaan macalinkeedu wuxuu ku dhahay weerar laakiin aabaheeda wuxuu ku dhahay inaad difaac gashay ilaa aad ka daasho kadibna weerar Gitaan waxay qaadanaysaa dhammaan talooyinka Mahavir uu siinayay ugu hore waxay galaysaa difaac markaan way guul dareysanaysaa hadana mar kale waxay bilaabeysaa wareegi labaad mar kale way ka keenaysaa hadana marka saddexaad ay weeraraysaa way ku guuleysanaysaa markaas labadooda ciyaaraan wareeg kale oo dheeraad ah markaas ay ku guuleysanaysaa ciyaartii oo dhan markaas waxay bilaabeysaa inaad ku gaarayso finalka ka hor ciyaartan la aadan waxaa la qabanayaa shir jiraa'id macalinkeedana wuxuu sheegay Gitaan dartiis inay ku guuleystay sababtoo qorshaalkii aad ku guuleystay ku dhahayaa wuxuu sheegay dhammaan tilmaamihiisa inay ku guuleysteen kastoo taasi ay run ahayn ibna huriye ayaa weydiinaya sida uu ciyaarto iyo sida ku heshay 180 darajo Gitaan waxay u sheegaysaa sababta guusheeda inay tahay aabaheeda maadaama uu aaminsan yahay isaga gabadhiisa Gitaan markaan waxay isticmaalaysaa awoodeeda ugu dambeysay taasina aad uga farxinaysa macalinkeeda kadibna Mahavir uu dacweynay maamulaha akademiyada wuxuuna sheegay Mahavir inuu mashquuliyo Gitaan inta ay ciyaarayso isagoo sheegay inuu siiyo tilmaamo ka soo horjeedo waxa macalinkeeda sheegayo maamulaha akademiyada wuxuu isleeyahay madaxda awgeed ay ku guuleystay gabadhaani finalkan kaliya waxa ka dhiman hal maalin kor ciyaartan waxa soo muuqanaysa Angelina oo la ciyaar doonta Gitaan waxayna ka soo jeedaa Australia shirka jiraad waxay ku sheegtay inay ka guuleysan doonto Gitaan waliba si kalsooni leh waliba xidhay sawir waa inay guuleysan doon ciyaarahan ka socoto India sababtoo ah hore Gitaan way la ciyaartay oo way ka guul dareysatay Angelina markaas ay guuleystay ciyaarta waliba wareegeeda ugu horeeya Gitaan soo baaday tagtay aabaheeda waxayna weydiinaysaa qorshaha ku ciyaar doonto ciyaarta finalka wuxuu sheegay kaliya oo baantana ciyaarta gaar ah oo cajiib ah maxaa yeelay tan waa ciyaarta ugu muhiimsan nolosheeda isagoona ku dhahay haddii aad gabadhan ka guuleysato maanta waxaad noqon doontaa tusaale qofna kuma ilaabi doono sidoo kalena
gabadha inaysan bah waxba dhaamin wiilka taasina adigoo kidi ay cadeen kara ayuu ku dhahayaa sidoo kale wuxuu ku dhahay gabadha inkastoo ay tahay shaqadeeda inay ka shaqeyso guriga haddana waxay noqon kartaa qof Olympic ah la gaaray finalkii ka hortaysan ciyaarta bilaabay mid kamid ah ciyaarahanada finaalinka ay imaanaya markaas inuu tagaya Maavir wuxuu ku dhahay waxaa rabaa maanta adiga kula hadlay laakiin uu soo waday wuxuu geenayaa qol kale oo meesha ka fog wilbana qolkaas oo maqaasiin Maavir ma awoodaan inuu soo baxo wareegga koowaadna Geeta ku guuleysanaysa oo iyada horyaalka haysa marka laadana wareegga labaad Geeta way ku guuleysanaysaa oo iyada haysa hoggaanka laakiin Angelina waxay isticmaalaysaa dhaqaaqo weerar si ay ku dhigto Geeta isla markaana ay u guuleysato markaasna waxaa la gaaray wareegga saddexaad ee kan ugu dambeeya taasi oo hogaamin doonta ciyaarta Geeta markaan ay ku dhawaan inay guul dareysato ciyaartan kaliya waxaa harsan 22 ilbiriqsi markaas Geeta xasuusanaysa dhaqaaqada uu baray aabaheeda si ay guuleysto wareeggaani taasi oo ay qiyaano ku sameyso ciyaaryahanka kala lugtiisa oo silita urugto Geetana ku guuleysanaysa midaasi wareeggii ugu dambeeyay waxay bedelaysaa natiijada ciyaarta sidaas darteedna natiijada oo idin waxay leexinaysaa dhanka Geeta ayadana ku guuleysanaysa ciyaarta finalka waxayna qaadaysaa bilada dahabka oo saynu soo degaysaa si ay ula dabaaldegto walaasheeda tanina waa markii ugu horeysay India ku guuleysato tartan caalami ah waxay aabeed weydiinaysaa Omkar isagana maskiinkii qolka ku xiran oo wili muusan ka soo bixin laakiin wuxuu maqlay heesta qaranka India walba isaga ku dhiban qolka si uu ogaadana guuleysta Geeta waxay maana shaqaale wuxuu ku furay albaabka Maavir soo baxay wuxuu soo gaaray gabadhiisa wuxuu soo galay goobta lidinta walba isaga oo yahay farxad darteed uu dhunkanay gabadhiisa walba isaga oo sheegay inuu aad u faraxsan yahay walba isaga oo ku amaanay sida xaqiijisay riyadiisa halkaas inuu ku dhamaanay filimkeena maanta.